daroonta Akinci waxaa lagu qalabayn karaa dareemayaal badan iyo nidaamyo elektarooniga ah. qalabkan ayaana diyaaradda Akinci u siinaya awood sare si ay si wax ku ool ah ugu fuliso hawlgallada sirdoonka, ilaalinta iyo sahanka. marka laga soo tago hawlgallada sirdoonka, ilaalinta iyo sahanka, diyaaradaha Akinci waxay qaadi karaan culays dhan 1.5 tan oo ay ku jiraan bambooyinka iyo gantaalada la hagayo. iyadoo suuqa diyaaradaha droniska ee Turkigu uu si xawli ah u sii kordhayo, ayaa dalka Kuwait waxay sidoo kale noqdeen dalkii 28aad ee caalamka ee iibsada diyaaradaha droniska ah ee caanka ee Turkigu soo saaro sida diyaaradda Bayraktar TB2. marka laga soo tago Kuwait, diyaaradaha Bayraktar TB2 ee aan duuliyaha lahayn waxay soo jiidatay dalal badan oo kale oo gobolka ah, waxayna dhinaceeda shirkadda Baykar ee tiknoolajiyadda diyaaradaha droniska waxay TB2 u dhoofisay in ka badan 30 wadan oo caalamka ku kala yaala. diyaaradda Akinci ayaa ilaa hadda lagu guuleystay inay si buuxda uga qayb qaadato hawlgallada kala duwan ee ciidamada Turkiga, ciidamada Pakistan iyo Liibiya. waxay kaloo diyaaradda droniska ee Bayraktar TB2 ay sumcad weyn ka heshay caalamka kadib markii ay wax ka bedeshay si weyn door uga qaadatay nidaamyada difaaca Ukraine ee ka hortagaya diyaaradaha gaashaaman iyo kuwa lidka diyaaradaha intii lagu jiray marxaladii hore ee dagaalka Ruushku soo qaaday. waxayna diyaaradani sida la ogsoon yahay ay door muhiim ah ka qaadataa burburinta safka hore ee ciidamada iyo taangiyada Ruushka ee u socday caasimadda Kiev ee dalkaas Ukraine. dadka reer Ukraine ayaa aad ula socday diyaaradaha Bayraktar TB2 waxayna ka qoreen heeso ay kaga hadlayaan ama ku ammaanayaan, waxayna sidoo kale shacabka ku nool halkaasi iska soo ururiyeen deeqo si ay diyaaradda droniska ugu iibsadaan. Imaaraadka Carabta ayaa isagana lagu soo warramayaa inay ku qarash gareyn doonaan ku dhawaad $2 bilyan wada xaajoodiyo ay la galeen dhawaan Turkiga si ay u helaan 120 diyaaradaha noocooda loo yaqaano Bayraktar TB2. la soo wareegidda 120 diyaaradood oo Bayraktar TB2 ah oo kaliya kuma eka, balse waxay sidoo kale heshiiskaas qayb ka ahaa agab militari oo isugu jira nidaamyada hubka, dhismaha xarumo talis iyo kuwa tababar oo ay ku hawlgali doonaan diyaaradahaas droniska ah ee ay samaysay shirkadda Bayraktar. ilawareedyo ayaa tilmaamaya in qiimaha halkii diyaarada droniska Turkigu uu gaarayo ilaa $5 milyan marka laga reebo agabka kale ee militari ee la socda. waxaa kaloo jira diyaaradda cusub ee loo yaqaano Bayraktar TB3 oo ah diyaarad xajmi ahaan ka weyn kana culus diyaaradaha kale ee aynu soo xusnay, waxaana wargeysyada caalamka lagu daabacay in diyaaradani noqon doonto mid ka dulkacda maraakiibta dagaalka ee diyaaradaha xambaara, taasoo Turkigu uu dhawaan soo bandhigay kadib guulihii isdaba joog ahaa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 ka gaadheen dagaaladii ka dhacay dalalka Ukraine, Suuriya iyo Liibiya. dowladda Turkiga ayaa dhawaan daabacday muuqaaladii ugu horeeyay ee diyaaradeeda cusub ee Bayraktar TB3. gudoomiyaha guddida maamulka shirkadda Turkiga ee Baykar, Selçuk Baykar, ayaa baahiyay muuqaalo ku saabsan marxaladda ay soo martay samaynta diyaaradda Bayraktar TB3. waxaana bartiisa Twitter-ka X uu bishii Maarso sanadii 2023 uu ku sheegay in diyaaraddan cusub ay awood u leedahay inay baalasheeda laabto isla markaana ay maalmo uun ka harsan tahay duulimaadkeedii ugu horeeyay. Bayraktar TB3 waa diyaarad weerar oo ay ka faa'iideysan karaan baalashooda laalaabka. tani waxay ka dhigaysaa mid awood u leh inay ku degto oo ay ka soo degto dhabaha ay ku ordaan maraakiibta qaada diyaaradaha Turkiga sida markabka Anadolu TCG, waxayna noqonaysaa tii ugu horeysay ee nooceeda ah ee adduunka sida ay sheegtay wakaaladda wararka Anatolia ee Turkiga. dhinaca kale, dalalka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa tijaabo hordhaca ku sameeyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ee ay sameeyaan dalalkaasi, waxaana la rumaysan yahay in diyaaradahani ay ka tayo hooseeyaan marka loo eego habka loo sameeyay iyo weliba tiknoolajiyadaha casriga, maadaama baa la yidhi diyaaradda Bayraktar TB3 ee cusub loo qaabeeyey inay ka kacdo dhabaha maraakiibta dushooda. tani waxay noqon kartaa tii ugu horeysay ee nooceeda ah sida laga soo xigtay shirkadda Bayraktar TB3. diyaaraddan ayaa ku guuleysatay dhammaan tijaabooyinkii dhammaadkii sanadkii hore, waxaana diyaaradahan horumarintooda markii ugu horeysay lagu dhawaaqay sanadii 2020. markabka dagaalka ee TCG Anadolu ee Turkiga ayaana loo doortay inuu noqdo saldhigga loo qorsheeyay inay ka howlgalaan diyaaradahan. TB3 ayaa ka barbar duuli doonta diyaaradaha kale ee Bayraktar Kisilma oo ah mid ka mid ah dagaalyahanada ugu horeeya ee adduunka ee aan duuliyuhu wadin, sidoo kale awood u leh inay ka howlgalaan maraakiibta dagaalka dushooda. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa bartiisa bulshada kula wadaagay sawiro isagoo ku sugan afaafka hore ee diyaaradda Bayraktar Kisilma isla maalintaas oo iyana la daabacay sawirada diyaaradda Bayraktar TB3.